بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واتحنهيني طلو تلمان تصارع يتوسين وانا قيبتي تضوبا يتوبنات. قيبت المانتا وحن سكودي دوناينا صدح دعضو oo farxad geliyay oo ka qayb galay oo qurba jooga Soomaaliland ay ku muujiyeen wanaagooda iyo kalgacalka iyo hawsha ay ugu maqan yihiin qarankooda Soomaaliland oo isoo jiidatay oo qayb ka ahaa ayaan jecelahay inaan idila wadaago iyo dareenkii aan ka dareemay bulshadeenta reer Somaliland UK. ugu horeysiyo magaalada Cardiff oo runtii nolosheeda intiisa badan baan ku qaatay 10 sano in ka badan aan u ahaa German odayadeedana aan ka tirsanahay hawl aanu in badan la bilaabay oo muddo soo socotay oo Cardiff kollayba hawlaheeda ilaa gobonimada horteed ilaa dhacdooyinkii SNM-ta taariikh ay hormood ka ahayd oo aan halkan aanan maanta aan waqti aanan hayn aan munaasabada ku soo koobi doono dhacdadii u dambeysay wixii kala tagayna ee muhiimana maadaama odageeda in badan ahaa aan jecelahay inaan qoraal uga tago bulshada oo qoraal ku dhiibi doono insha Allah ta'ala buugaan wado taariikhdeeda nolosheeda ku saabsan ayaan u dhaafi doonaa. laakiin dhacdadii u dambeysay guusheeda jaaliyadu way wada lahayd cidina gaar bay u lahayd intii gaarka u lahayd horta aan u mahadnaqno guddi 13 raga iyo 2 hablood ee isku hawlay ee Ilaahayna nasiib u siiyay inay ka mid dhaliyaan guushaasi. waxaan leenahay hambalyo gaara iyo Ilaahay ha idinka jisaayiso. haddaba dhacdadaas dadka bulshada reer Somaliland waxaan oran karaa boqolkiiba 99 way muujiyeen farxadooda. boqolkiiba hal ayaa la masuugtay laakiin qalbigoodii niyadooda waan ogahay oo aad bay mabsuud yihiin oo boqolkiiba boqol waxaan qabaa reer Soomaaliland mabsuud ka tahay. inta la masuugtay oo meelaha qaarkoodna hadalla ka sheegtay baan jecelahay in la hadlo walow daaytay yihiin dad minority haddana dhacdooyinka qaranka inaan loo kala hadhin baa fiican oo in farxadda wada wadaagno. ilaahayna dadkii wada jiray niyadoodu san tahay ayuu wanaaga Ilaahay waafajiyaa. وحوي ولا ليال اعتراف وحلا يلاحظه وحوي برشة ذاك هو الرسول وحلا إنه برتو دان لو برانو لو أقولين دي محل علاقات يمان كلام بتشرو وحي سومالو تلاحظه برشة هرتيد هاي نعم وحوي رأي كينيسا دقائق ما ننتي دو داي وحوي برشة اللي بندي دو داي waxay nin walba uu isku day markii mooshinka la geeyay Somaliland waayo xagee ku taala maxay tahay maxay naga dhaxeeya research bay galeen. waxaana u daliila intii nasiib u heshay inay dhageysatay sida ay uga sheekeynayaan ay u soo darseen ee cilaaqaadka u ogaadeen ee taariikhdii u ogaadeen inaga dhaxaysay wadankan UK waxaasi waxa keenay mooshinkii inay dib ugu noqdaan horta deyntaynaan يا ما يقولون who are Somalilanders maxay tahay Somaliland reer Somaliland maxay barashadaasi baa horta wax ugu weyn aan kuba soo koobi karaa walaalayaal. waxa barashada soo raaci doona marka in barashada fito jaraydkii baa qoray telefishinka laga sii daayay waa la isweydiiyay nimankii baamishirkaaba interest la imanaya war dalkan markaas ay iman doonaan waxay arki doonaan wixii fursado yaala maalgashi baa iman kara waxyaabahaas oo dhan waxay ku daba socdaan ay ka bilaamayaan wararta ma lagu yaqaan marka Ilaahay intuu qofna ha ku aqoonsadee wada baan leenahay jaaliyadaha dhamaantood ardaydu macallimiintooda ha u sheegto waxaan ku ilaahdaa nimanka councilka shaqeeyaan councilskooda ha u sheegaan ka darawalkii taxi ilaahay ha u sheego passenger ku qaado maxaan ku ilaahdaa kuwa baamishka dukaamada iibsanaya fursad ay u helaan jaarka halala hadlo aqoonsigeena aynu wada dadaalo qof
iyo jamac iyo guru iyo jaalid inta baan ku dadaalo taa halkaasaan kaga baxayaa tii labaad ee xigtay waxay ahayd xaflad qiimo badan oo jaaliyadda Bristol khaasatan laba urur oo dhalinyaro ah oo midna la yiraahdo Somaliland Society Bristol midna la yiraahdo Somaliland Solidarity ay noo sameeyeen aniga waftigii halka ay noogu sameeyeen casuumadaasi oo runtii xaflad qiimo badan xaflad ka duwan noocyadii aynu naqaanay ee inta la isu yimaado hadalka intiisa badan bay qaadan jireen dadkii magaranaysa martida iyo gogasha fidiyay halka dadka martida loo yahay mas'uuliyiinta la dhageysan lahaa ee hadda jeer buuq badan oo ka dhalan jiray meel aan sanqad lahayn oo maxaan ku dhahay la dhageysanayo oo madashii inankii maamulayay Maxamed Cumar Boobe Allah ka jazaayo si sharaf la uu maamulay oo ahayd waa nin waliba balwix mas'uulka ka yaan wareysano oo u dhig taagno oo ka faa'iideysano ayay ahayd xafladaasi waxay tustay inay bulshadeenu bislaatay siyaasiyan inay doonayso inay mas'uulka meesha u hayay waa u shaqaale war maxaad noo qabatay maxaa ku qorshaysan maxaad naga rabtaa ya waa bulsho bislaatay halkii saacamuninta la tumo la amaanayay mar walba ninkii wafteeyay yimaada la amaanayay mucaarad iyo muxaafidba wadanka xafladaheenu waa durbaaniya sacab iyo amaan ya la amaano qofka ma aragtay marka halka fadhiya taagan halkii loo nawal maxaad qabatay iyo maxaad rabtaa ila la xisaabtan minaa mucaaradkii cid la wixii weydiinaysa ma jirto dhaliishii dawladda oo wadaan iyo wal amaano oo lagu yeero maartiin madaxweyne albayhi hebelkii mustaqbal war dadka la xisaabtama oo wax weydiiya mas'uuliyiinta oo kan kursiga uu soo socdana wax weydii kan kursiga maanta ku fadhiyana la xisaabta oo kala faa'iideys oo marka kala doorta ka daayo waqti lumska xafladda inta qabataan oo ku kharash garoodaan ya uun qofkii amaantiisa iyo jacaylka uu jecel yahay in qof kale la cambaareeyo isagana la amaano waqtiga kullu misaan wallahi wala ka fiican yahay habka inankaas uu soo dhigay hab fiican weey bilow haydina waliba waa noo jilciyay su'aalaha waa bilow su'aalo kuwa ka adag la kaalaya warda ka shaqadeedin haya maanta xisaabiya ka ku soo socdana xisaabiya aan kala dooro warqarankeenu taasoo ku dhismay dimuqraadiyadda asaaskeedu waxa weeye ninkii aad hawsha u diratay hawshii inaad ku ogaato ku ilaaliso inaad ku garab gasho inuu markuu ka leexdo ku qaldamo aad u sheegto in maalinta ay fursad ku timaado kula xisaabtanto kan soo socda inaanood ka dhigaysan oo caayo kan kursiga ku fadhiya ee tiraad hooyo waar maxaad qabatay maxaad haysaa maxaad damacsan tahay maxaad siyaasadda ku qorshaysan arrimaha noocaas ee taagan ee sheegayso maxaad ka qabanaysaa ya war waxa la yintus ma aha hebel iyo hebel isriyanaya waxa ku tarimayso siyaasad bedesha مبدأ يا مبدأ بدله يا halka ka wadan leeyahay reer Bristol dariiq fiican bay fureen oo lagu xisaabtan karo taa waxay raacday ugu dambeysay maalintii dhaweyta sabtidii oo la yiraahdo EAD East African Development Association oo ka howlgala deegaanka anigu aan ka soo jeedo oo wax qabad oo charity oo urur samafala oo xafladiisii sanad guuradii sameeyay sanad walba xaflada qabta waxay iyana muujiyeen waxa la yiraahdo transparency daahfurnaan inaanay sanad walba ay warbixin siiyaan dadkii taageerayaashooda ahaa dhaqaalahana u fidinayay deegaanka ka soo jeedaan wax loo weydiinayay in loo warceliyo oo warbixin buuxa la siiyo oo lana soo dhigo project cusub oo sanad kala doonaya in la fidiyo wax aad iyo aad u qiimo badan weey waxay namadaas yaablahaasi ay keeneen inay soo bandhigeen baahi weyn oo baahsan oo dawladuna wax kaliya wax ka qabanaynin oo u baahan tahay xukuumad iyo shacbi dadka deegaanka waliba khaasan asaas u noqdaan meel ay joogaanba
inay dadkooda kusoo dhiiriyaan ceelal la qodo barkado la sameeyo madaaris iskuulo baahi caafimaad intaa in laga howlgalo waxaa farxad weynay ahayd in meesha ay fadhiyeen dad siyaasadda ku kala duwan mucaarad leh muxaafid leh oo garabka haddana is haystaan oo maxay garabka isku hayaan dantii guud bay wada fahmeen madarasada laga samaynayo electa ceelka laga qodayo allah ay baday dariiqa la hagaajinaya allah ay baday iskuulka laga samaynayo faraweyne yay dan u tahay bulshada oo dhan bay dan u tahay xisbi kasta ahaw muxaafid ahaw mucaarid ahaw bulshadaasi iskuulna la odhan maayo iskuulkaasi waxaa galaya un dadka xisbi hebel ka soo jeeda ama ufooda dhakhtarkaana waxaa iska daweynayaa xisbi hebel ma taalo dadka deegaanku baa wada anfacsanaya fahamkaa ay fahmeen inuu halkaa isugu nimi annagoo siyaasadda ku kala duwan laakiin danta guud usoo wada jeedna taasina ididilo weyn bay gelisay iyo bulshadii oo bislaatay waxaan leeyahay colkaana aan ku dardaaraya ogaada waxa la yidhaha accountability shin waliba meeshuu galay warbixinteeda bixiya waxay dadku kalsooni idinku siin doonaan oo inta idinka maagan een weli jeebka gacanta gelin ay gelin doontaa marka sidaa u taabsiiso wixii aad ka qaaday dadka iyo waxaad gelisay waa bilow fiican baa bilowdeen sawiraa keenteen waxaan leeyahay qarashkii aad bixiseen oo tafatiranna raaciya halkaa ka wada kalsooni buuxda waad ka helaysaa nin kasta oo deegaanka ka soo jeeda markuu arko waa 10 geni iyo 10 dollar waxay tareen waxaan xusuustaa beri iyo sanamtii la halgamayay caan bay ku tashay sheekadaas in allah u naxariisay marka dhintay oo magaalada Cardiff ku noolaa raggii siimaanka ah ayaa la yidhi waa 5 geni walbashii 5 geni aan bixino lacagtii baa la yaraatay markaas waryaare ma waxa leedin 5 geni baa dal xoreyn doonta ya ninkii berigii dambe ee dalkii xoroobay ayaa la yidhi 5 geni baa ayaa xoreysay markaas uu leeyahay bil lacag yareeyay male taageero yareeyay male maalreer 5 geni wax weyn bay taraysaa ee hal baxsho dadkuna gacmaha is qabsadeen ragga mas'uuliyiintaana la xisaabtan wax ugu weyn ee dadkeena shaki kala geliyay ama qaaraan ha noqoto ama urur siyaasadeed ha noqoto ama urur samafal ha noqoto waa xisaab la'aan baa dadkii shaki ku beertay kii xumaayay bakhaylka ahaa ee qalbiga xumaa wuxuu ka faa'iideystaa xisaab celin la'aantaasoo markaasuu yidhaa waxbaa la cunay waxbaa la cunay ogaada meel qalbigii shilinkeeda ka baxaa meel ku qora si transparent oo cad dadka saa uu soo bandhigay marka adduunka internet baa lagu shaqeeyaa web page-kiina isku geliya wixii tafaasiil waxaan huwa 100% in xisaab lacagtu iska soo daba dhici doonto dadku waa dad niyad wanaagsan oo fiican oo dadkooda wax loo qabto jecel tashuush iyo shaydaan baa ayaa ka faa'iideysta oo shaki kala geliya oo siyaasadeysan oo nin ku xume ayaa deegaanadu maanta u arday waxaan idinku la dadaaliyaan mar walba ku celinayaa siyaasi ha ahaato urur charity oo samafal ha ahaato urur waxbarasho ha ahaato iskuul war aynu noqono ummad ku shaqaysan nidaam ay ka dhigato lagula xisaabtamo daah furan oo shakiga laga saaro dadka oo ninka mas'uulka uu garto inuu yahay shaqaale ka kale loo shaqeynayana uu garto inuu yahay ninkii booska ahaa ee tahay inuu xisaabiyo ee aan ka gaban ee aan u noqon dhinaca kale nin la leeyahay inuu noqdo laguma lahay adiga leh oo shaqaaleysiiyay ninka mas'uulka maanta waxaan ka saan idinku la dardaarmayaa aad baan saddexda arrimood ka qayb galay bay farxad geliyeen aad baa u mahadsantihiin iyo mustaqbalka oo waanideyda iyo wacyigelinteydaasi aan hoos ugu dhaadhici doono qaar specific oo khuseeya arrimaha dhaqaalaha iyo miisaaniyadda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh